فضفاض كما تغاني مطاط وأرى قدام الله عرن ويشاش وحويا محد سياسة وجهده محد سياسة الله يلعب هذا يتقابك النولش يددك له هقامية تي هقامي انت وحبا دبال له هقامية قريبات هقامين كرتا مساجد بات هقامين كرتا دعوة هقامين كرتا أربات هقامين كرتا بني آدم كو سياسته ما أفرتا كرسي وصرية يعني وزيري يا أفرتا عين كان يعني مدك عليه سؤالها وباهن دي بلوغ النقطة وحكم ده شغلة محاوفي عنه وامد حقوقك أوده وامد الله بعض وقتي وهلية وامد الصدحات يعني وحياة الشقة الغدور تاجرة من تلي وحي نقول حيلا وحبات جرا مركا لغو سعلية لغو شكاية لغو شكاية لغو شكاية مركا دبات قادمس مثلا human being in lasoo saaro iyo in computer lasoo saaro ama gantaal lasoo saaro ama gaari lasoo saaro iyo ma fiican nolosha ayaa qiimo ku leh shaqada human being inaad soo saarta ah iyo shaqada inaad computer samayso keebaa mudnaan leh يعني وين دمركو الأصل إنسان كان نلاشى وحكي بدلون أن يجا صوصار عد كلا صوصار تما شفتو وورشد صوصار تبني آدم ورشدها كلا دم كمان كقيمة بلانتي لكن عكس بالا ينوب صورة هلا نقول قد فديسة صرت يك تشذا ضد حينسة waxaa la rabaa inaad nolosha wax u yeelataan nolosha wax soo saartaan dumarku dayaaradaha la kiciya injineerada la noqda oo injineerada iyo ilmata dhashay tee qiimo badan teebaa qiimo badan nolosha riyalka ma keeno maanta Yurub way qaylinaysaa aqoonyahankoodii cid badan oo ka mid ah مثلا Buchanan waxaad arkaysaa wuxuu qoray the death of the West waa nin mufakiriinta Mareykanka ugu weyn ka mid ah wariye ahaan jiray la taliye madaxweyne ahaan jiray saddex jeer baan filayaa isu soo sharaxay inuu madaxweyne Mareykanka ka noqdo ayaa wuxuu qoray book la yiraahdo the death of the West geerida ninka cad uu sheegaya waa maxay waa hooyada la shaqo galiyay buu leeyahay Frankfurt School qolo loo oran jiray oo falsafadaas faafisay buu ka waramaya marka wuxuu leeyahay waxay nabadeen in maanta ninka cad dunida ku nool oo dhami laba qof oo kasta nin iyo gabadh kasta oo isqaba labadii bedeli lahaanay soo saarin ku darsamayna dhaqa ka qaatanaa imka Talyaaniga 1.3 buu maraya yani inay dadku bulsho inay horumarto jirto 2.1 ayaa asala 2.1 waa maxay xooyaan labada isqaba ugu yaraan 2.1 inay dhali karaan si kale hadaan tilmaamo boqolka qoys waa imisa waa boqol iyo boqol gabdhood Soomaha inay dhali karaan 210 caruur ah iyagoo 200 hadii la rabo in la joogteeyo bulshadaasi tiradeedu inaanu yaraanin waa inay dhalaan baa la leeyahay maxay 2.1 inay dhalaan 1.3 bay marayaan 1.3 macnaheedu waa maxay waa saddex jiil ayaa Talyaanigu baaba'aya qof Talyaaniga la waayay wax ku dhadhow yani 200 Talyaaniga maanta jooga waxay dhalayaan 130 qof 130 kaasi haddana 1.3 bay dhalayaan inta ka soo hadha 1.3 bay dhalaysaa haddana hoos uga sii socdo that means way dabar go'ayaan buugga ninkaas qoray canaawintiisa waxa ka mid ah الحيوانات المنقرضة بوبحي حيوان كدبر كقوة la rabo soo imka lama yiraahdo xayawaanada dunida ka sii yaraanaya meelaha zuuyada inta la keeno breeding ha loo sameeyo hal badiyo ninka cad baa saa ku socda buu leeyahay xayawaanka dabar go'aya way buu leeyahay dunida imka sanad kasta buu yiri wadanka Mexico dal leeg ba dunida ku soo kordhay every year walaa cadaanku waxba kama aha
iyagu way sii yaraadaan dadkuna wuu soo badanaya iyaguna way sii yaraanayaan marka waxay noqonayaan buu yidhi beri dhow specieska munqaridka noqonaya dabar go-aya bay noqonayaan muxuu leeyahay cilladu waa maxay cilladu waxa weeyaan buu yidhi inanta cad baa waxaa lagu qanciyey inay ninka la beranto marka wuxuu leeyahay 30 sane hore kaariyarkeeday dhisaysaa waxay dhisaysaa aqoonteedii iyo waxbarashadeedii iyo 10 sane ku xiga waxay dhisaysaa boos sare say u qabsan lahayd waa dee meel hoose ka soo bilaabaysaa dabeetana say jaranjarada u soo kori lahayd qimada waxay gaadhaysaa buu leeyahay markay waxba dhali weydo dan waxay soo halganka ku jirtaa buu leeyahay ilaa iyo intay wax dhali karaysay markay timaadana booska sare markay timaadana waxay soo gaadhaa buu leeyahay fitradaani waxba dhalaynin waxaanu u baahanay buu leeyahay haddaynu rabno inaynu noolaano inan kastoo cad in lagu qanciyo ayaydeed intay dhali jirtay inay dhasho bay leedahay taa macnaheedu waxa weeyaan ayaydeed 7 iyo 8 bay dhalayeen yurub waa bay dunida qabsadeen markay tarantoodu markay badatay ba ku filaan weyday waddanku dabeetana dowladahoodiiba intay hub siiyeen yidhi qabsada dunida kale settlementska markaasay sameeyeen maraykan qabsadeen oo kanada qabsadeen oo australia qabsadeen oo afrika qaybo dhan degeen oo dadkii joogay laayeen oo iyagu ku dhaleen meeshoo degeen waa tiradii iminkana maxaa jira haddana waxaa jira bay yidhahdeen cagsiga waan sii yaraanaynaa saa daraaddeed bay leeyihin dadka benshanka gelaya iyo dadka shaqada gelaya dadka benshanka gelayaa badan saa daraaddeed benshan la heli maayo bay leeyihin haddana cashuur laga qaado dadka la helaynin oo markaa maxaa xal ah dhali weyni dan maxaa xal u ah qaxoonti ha la qaato politicska raggii joogay waxay leeyihin waddankani ma jirayo habartii germany haystay maxay tidhi germany sanad kasta waxay u baahan tahay bay tidhi 500,000 people inay qaato minimum 500,000 people oo dabadda kuwii cultureka ilaalinayna waxay yidhaahdeen dhaqanka iyo diintaa naga bedelmaysaa marka waxa la isku hayaa ma dalkaynu ilaalinaa inuu jiro oo dad baynu qaadanaa dad kaloo dhalayaana ma jiro afrikaanka iyo muslimkaa mooyaane ma dalkaynu ilaalinaayo dhaqaalihiisa iyo siduu u jiri lahaayoo dad kalaynu qaadanaa mise dhaqanka iyo diinta iyo ninka cad baynu ilaalinaa waa isla dunnaa waxay leeyihiin siyaasiyiintu waa inaynu kala dooranaa caqli gaboobay iyo guryo gaboobay iyo dowlado gaboobay iyo dad sii maranaya inaynu ahaano iyo inaynu refreshment samayno iminka soomaalidu loo qaatay yurub iyo meelaha kale ma wax kale loo haystaa baad moodaysaa waa warshada dhasha iyagu caruurtay biiriyaan waddankay dhalkayaan nin waliba wuu yimi 10 buu dhalay 8 buu dhalay gaaladina waxba dhali mayso shaqadii bay gelayaan shaqada sare weli lama siinayo shaqada hoose ay buuxinayaan idan waa warshadii la rabay bini aadamka inay biiriso ka waxaan uga jeedaa caqliyada yurubku hadday intaynan odhanin way fiicnaadeen iyo dumarkiibaa wax noqday siyaasadda ka qabayay kan intaynan odhanin aan isweydiino maxaa natiijadii ka dhalatay ay noqoto natiijadii gabadhu inay ninka la loolantay inay madaxweyne noqoto yes madaxweyneyaal bay noqdeen duuliyayaal bay noqdeen khubaray noqdeen meel kastay galeen laakiin maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay rag iska celintii 2 nin inay noqdaan suurtagal maaha labadan shaqo inaad isku qaban kartaa human being wax ah inaad soo saarto human being kan la geeyo kindergartenku dad noqon waysna waxaa soo baxa dadaan naxariis lahayn hooyadaan naxariista laga helo hooyadaan adag joogto ee naaskeeda nuugayso ee dhabteeda ku kaajayso ee aad la nooshahay hooyadu soo ma ogid ma tiriso gafka ilmaheeda inta badan hooyadu ilmaha aanay dhalin ay korisiye ilmaheedu isku mid ma noqdaan waayo inta badan majority sababta waa maxay waxa weeyaan ilmaha aanay dhalin markay korinayso gafkiisa way tirisaa maanta koob buu jabiyey shalay sariirtuu jabiyey maalintii ka horreysay waxaasuu sameeyey odaygu markuu yimaado inan kaloo islaan kala dhashay uu islaanta hayso waxa leeyahay waa kii waxaa sameeyey maalin kasta waa ishtako kuweedu intanba way sameeyeen laakiin ma tirsanaa waayo waa hooyadood record ma lihid adiga hooyadaa ma hayso weligaa waxaad dhib geysatay inankeedii fiicnaaye dee soo koray u baa tahay intan ka yara kale uu sameeyey intaba waad samaysay sariir waa jabisay oo waa jabisay oo laakiin dee waa hooyadaayo kalgacalka iyo naxariistay ku haysaa wuxuu keenayaa
inaan waxba lagu tirin marka ilmaha hooyada ku akora lama mid aha bal ka waran hooyo sinaaciyo 40 caruur halkee ku haysa waa ilmaan naxariisba baranayn bay yiraahdaan waa ilmuhu kama maarmay bay dhahay markuu yar iyo hooyo u gaara oo cid kale la wadaagin ولذلك عرورته markay isku dhalasho xigto dhabta islaanta waa la isku haystaa kolba ka yar baa raba inta kale inuu ka riixido way meesha tan waa meel khatar oo nimca laga helo marka waa in kuwa kale laga durkiyaa ida waxaynu uga jeednaa intaynan isweydiinin gabadhu siyaasadda magaalada maxaynu ka helaynaa bay isweydiinayaan bulsho ahaan maxaa soo kordhaya yes waad qaban kartaa wax badan oo rag u qabto qaban kartaa wax badan oo kamid ah wax rag u qabto waxa aanay qaban karin waa jiraan oo mentally isku siba uma fakarno ma scientifically waxa la leeyahay ninka iyo gabadhu isku siba uma fakaraan isku qaab ma hatta tijaabada waxay gaarsiiyeen in hablo la qaado oo sida ragga loo tababaro from maalinta ay dhalatay qoladan gaalada akhlaaq xumada wada waxay ku doodeen ninnimadu iyo gabadhnimadu bay leeyihiin waa culturally sida loo koriyo ninna ma jira gabadhna ma jira ninkana waa la gabadhayn karaa gabadhana waa la ninayn karaa that's all waa culture ka bay leeyihiin wax lagu koriyo dadana waxay dhamaan practical la sameeyo Israel baa lagu sameeyay practically dumar la qaado ragnimo loo tababaro waxa la leeyahay wuxuu inaan ku qabanayo baa loo diraya inay gabadh tahay waa in laga masaxaa waa in la tababaraa sida ragga inay u fakarto stage markay soo gaadhaan bay leeyihiin mentally ninnimada iyo gabadhnimada isku mid maaha waxaa akhridaan almukh the mind buugga la yidhaahdaa the brain oo qoray nin tabiiba qoray wuxuu ka warramaya tajaaribtii casriga ahayd ee lagu sameeyay caqliga dumarka iyo caqliga ragga waa laba caqli kala nooca maaha macnaheedu caqliga ragga wax walba ka fiican wax badan ay kaga fiican yihiin dumarku baa jira مثلا dumarku waa multi processed bay yiraahdaan caqligoodu ninka caqligiisuna waa wax uu tarkiisiyaa waa labada shaqo Ilaahay ugu tala galay gabadhu waa multi processed caqligeedu shaqooyin badan bay isku mar qaban kartaa islaamtu iyadoo dheriga walaaqa soo karinaysa ay ka naxfaayada ka bedelaysa kaana leedahay hal seexiyo mar quray waxa wada qaban kartaa adiga hadii ku jada lagu galiyo adiga bariska walaaqayo mid yar dacal ku qabto naga qabta baad leedahay diraysa shaqada ay nagu leeyahay waxay leeyihiin waxbuu tarkiisiyaa caqligiisu hal wax buu qaban karaa laakiin caqliga hooyadu bay yiraahdaan waxa weeyaan waa multi processing isha dumarku bay yiraahdaan iyo isha raggu si wax uma laha isha gabadhu bolladka way uga badan tahay intay ka arki karto isha raggu intay ka arkaan saadaradeed bay yiraahdaan driving-ka ويرتي قبله إنه accident كشو لكن accident كي سببا بين هذا conservative نمدو تدراده لكن أنت بدري يو accident كما قال بين وحنا وجه هذا والله بقى أبورك على النوع والله بقى أبور أو واحد بدل يكون كله قديسي يجيران لكن وحنا سويدين إنه محاب الشدة وفائدة بدل له محاب مجتمع وفائدة بدل له محاب إياه أمد كذا وفائدة بدل له هو شغل تكتي أما بالله سيح كشغيسة أما ورشة كشغيسة أما إيش دون تاك كشغيسة سود ده شيء يودي سود ده له جوري جيمي وحبا عرور ما قبطان يعني هو التجارب تيرب لغها أيوه صلاة الله دي يودي صلاة الله هي عيال صلاة الله جوري سيدات الله فاروق يدا مانتي أفرت عمش أنت قلب من اللي سوى ده هيدو وقف ولي بيسوي دالن مال كله waxa ka soo baxay caruur la'aan marka mostly waxay isweydiinayna hooyadu ma ubad fiican inay keentaa bay rabtaa oo nolosha isbedel ka samayso mise siyaasadda inay wax ka bedeshaa bay rabtaa labadaba waa samayn kartaa wax badan oo kamid ah laakiin yaa bulshada u fiican yaa iyada gurigeeda u fiican yaa ubadkeeda u fiican taa isweydiinayna walaal